Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Waxaan bartayda TikTok soo dhigay muuqaalkan. Ku dhawaad waxaa daawatay 128,000 oo qofood. Mid ka mid ah asxaabteyda ayaa wuxuu isoo weydiiyey sidan waxay u baahan tahay in la raadiyo qof soo geliyay TikTok muuqaal noocan oo kale ah. CapCut si toos ah ma loogu samayn karaa miyaa? Su'aashaas ayuu u weydiiyey saaxiibkeen. Laakiin template-iskan TikTok la soo dhigayo CapCut si toos ah ma loogu samayn karaa ayay tahay su'aashiisa. Si toos ah TikTok CapCut waa loogu samayn karaa template-iskan. Haddaba sidee u samayn kartaa oo adi muuqaalkaaga aad gacantaada ugu samaysan kartaa? Aniga ayaa ku fahansiin doono oo si toos ah kuu bari doono. Haddaba intaan muuqaalkeena gudaha u sii gelin, haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad halkan soo booqato, YouTube-kan subscribe saar, muuqaalkan like saar, u share garay saaxiibadaada si ay u samaystaan templates noocan oo kale ah. CapCut-kan ayaa badanaa la soo dhigo, waxaad aragtaa in views badan uu markaasi ku helayo. Okay, anagana waa samayn doonaa. Waxaa u baahan tahay marka in CapCut-kaaga taleefankaaga kugu jiro aad soo kacsato. CapCut-ka taleefankaaga kugu jiro marka aad soo kacsato, sidaa u jeedo halkaas oo profile-kaaga ah ayaad ku dhufanaysaa oo gees meeshaas sare. Kadib wuxuu ku leeyahay TikTok-gaaga ku xiro, Google ku xiro, email ku xiro, Facebook ku xiro ama Apple ID-gaaga ku xiro. Hadda waxaan isticmaalaynaa TikTok-geena. Okay, qaybta TikTok ayaad ku dhufanaysaa. Si toos ah wuxuu kugu xiri doonaa cinwaankaaga TikTok-ga ah iyo CapCut-ka ayuu isku xiri doonaa. Marka hawshani inta ayay ku bilaabanaysaa si aan u sameyno templateska. Okay, CapCut-kaaga iyo TikTok-ga ayaa hadda isku xireynaa saa hadda u jeedaanba. Haddaba baabuurka ha ka dhicin, muuqaalkan wuu dheer yahay. Muuqaalka like saar, haddii aadan weli like saarin like saar si dad badan uu gaaro. Waayahay, waxaa socoto isku xiridda CapCut-ka iyo TikTok-geena. Oh my god. Weli waxay socotaa TikTok isku xiriddiisa. Profile-keena haddaan fiirino si toos ayaa markaasi la iskugu xiray. Hadda waxaa u baahannahay inaan new project ku dhufano si aan markaasi u soo diyaarino muuqaalkii. Okay, maadaama ay sanad guurida Koonfur Galbeed ay tahay, sawirkan gabadhan ayaan soo qaadanaynaa, muuqaalka ayaga ayaan ka dhiganaynaa. Okay, sawirka gabadhan markaa soo qaadato, muuqaalka cabirkiisa ayaa TikTok ka dhiganaysaa. Marka sawirka ayaad ku dhufanaysaa, kor ayaa geenaysaa. Kadib waxaad raadinaysaa meel ay ku qoran tahay mask ayaad raadinaysaa. Maska markaad doorato tan koowaad ayaad ka dooranaysaa. Muuqaalka ayaa falaarta hoos u socota ayaa hoos u jiidaysaa, xoogo yar khafiif ah ka dhigaysaa. Waxaa kaloo soo qaadanaysaa muuqaalkan waxaa ka dhiganaynaa saaxiibkeena Xasan Tayga. Muuqaalka markaa hoos ayaad u dhigaysaa xoogo yar. Isla sidii hadda maska ayaad raadinaysaa oo maska markaad raadiso, maska markaa aragto, maska ayaad raadinaynaa. Maska markaa aragto, isla tan ayaad ka dooranaysaa, waa gedinaysaa labadaada far intaa ku qabato. Marka 180 ay kugu aado cabirka uu kuu saxmo, kor ayaad u qaadaysaa. Isla sidii hadda ayaa samaynaysaa, asna xoogo yar khafiif ayaad ka dhigaysaa. Haddaba muuqaalkan waxaan sameynaynaa qaabka templateska ee TikTok la soo geliyo, adiga u samayn lahayd ayaan ku barayaa. La soco, baska ha ka dhicin. Waxaan sameynaynaa sawirka iyo muuqaalka ayaan isla ekeysiinaynaa. Waxaan wax fudud waaye, haddii aad isku dheerayso ayay kugu dheeraanayaan. Hadda kaliya waxaan sameynay labada muuqaal ayaan isdhexgelinay maadaama ay dabaaldega 13 November ee KGS ay ku aadan tahay ama Koonfur Galbeed. Sidaas darteed ayaan waxaa rabay in ani muuqaalkayga tusaalaha Koonfur Galbeed ah ugu xuso. Waayahay, calankii Koonfur Galbeedow ha liicin, waayo anigu waan ciiloonayaa. Calankii Koonfur Galbeedow caadka sare babo, waayo anigu waan caaboonahay intaad cirkuba ka agdhowdahay. Cid kastaaba waa calankeede, anigu astaantaydu waa cagaar iyo gaduud. culumadii aaraareen. Muuqaalka iyo sawirka ayaan isdhexgelinay, screen ayaan ka qaatay, aniga ayaa dan ka leh. Waayahay, marka waxaa samaynaysaa qaybtan oo waxaad tegaysaa effectiska. Markaad tagto kadib waxaan rabnaa labadan inaan effectis saarno. Okay, haddaba effectiska ama aan saarayo, haddaba fiiri effectiska aan markaas saarayo aadna saaranaysaa. Effectiska markaas u saarato waa jiidaysaa ood muuqaalka ayaad la ekeysiinaysaa. Muuqaalka markaad la ekeysiiso, isla sidaan markaad samayso, muuqaalkaagii waa uu kuu diyaarsan yahay. Kaliya waxaad samaynaysaa
qoraalka ayaad ku soo daraysaa. Textiga ayaan tignay, raxweyn ayaan qoraynaa, kadib qoraalkii ayaan love ku darnay iyo calaamadaas. Marka waxaan rabnaa inaan muuqaalka qurxino. Hadhow qofka uu soo qaadanayo waxaan rabaa in uu markaasi muuqaalka uu qurxiyo. Waayahay saa ujeedaba textiga ayaan ku jirnaa, waa qurxinaynaa textiga mid nagu habboon ayaan raadinaynaa. Kan ayaa xoogoo ku qurxoon, kanaan soo qaadanaynaa. Haddaba la soco, geeskan ayaan dhigaynaa. Shaqada aad ayay u dheer tahay, la soco. Muuqaalka ayaan la ekeysiiyey, textigaan hadda soo qaatay, muuqaalkii iyo textigii iyo marka aad sidaan ugu soo baxdo qaybta yar aan ka soo bixinaa, ku dhufo qaybtaas yar ayaan ku soo saari doonaa. Kadib qaybtaas kale ayaad ka dooranaysaa, kadib qaybta sare aan ku calaamadeeyay ayaad ka dooranaysaa, kadib muuqaalkaagii ayaad dooranaysaa, next ayaad leedahay. Si toos ah inta uu kuugu soo saarayo muuqaalkaagii waa sugaysaa. Muuqaalkaagii ayaa si toos ah uu kuugu soo saaraya, kadib muuqaalka ayaad ku dhufanaysaa. Halkan waxaa loo baahan yahay in aad si faahfaahsan iskaga saxdo. Waxaa lagu leeyahay sawirka qofka hadhow iskaga bedeli karo waa kee. Waxaa ka dhigaynaa sawirka gabadha kor saaran ayaan ka dhigaynaa, asiga ayaa dooranaynaa. Overlayga ma rabno, waxaan dooranaynaa muuqaalka gabadha ama sawirka gabadha. Waayahay saa hadda ani sameynaya u kala dooranayo ayaad ka dhigaysaa. Kadib halkan ayaad waxaad ku qoranaysaa qoraal yar oo aad markaasi hadhow ku kala garanaysid. Tusaalaan hadda muuqaalo badan ayaa ii save garaysan inuu isku dhex darsamo lama rabo. Waayahay next ayaad leedahay ama post. Marka qaybta sawir ayaad iska saaranaysaa oo thumbnail ah, kadib next ayaad leedahay. Marka inta uu kugu save garaynayo waa sugaysaa. Hadduu uu ku save gareeyo templateski sidaas ayaad markaasi ku haysataa. Waayahay wuu noo save garaynayaa. Haddii aad muuqaalka like saarin waa ku xasuusinayaa like saar. Waayahay muuqaalka ayaan ku dhuftay, kadib waxa uu weydiiyey sawir inaan saarto. Muuqaalka markaas sidaan ugu dhuftay sawir ayaan saartay. Calankii koonfur galbeed oo haleecin waayo anigu waan ciiloonayaa. Calankii koonfur galbeed oo caadka sare babo waayo anigu waan si toos ah ugu save garaysanaysaa TikTok. Si toos ah wuxuu ku geen doonaa TikTok-gaaga. TikTok-gaaga ayuu ku geenayaa waayo anigu waan ciiloonayaa. Calankii koonfur galbeed oo caadka sare babo waayo anigu waan ayaa sii dhahaysaa. Waa kaa wuxuu ku leeyahay muuqaalkan waad dhigi kartaa. Haddii aadan muuqaalkan wax aadan ka fahmin, wax ma fahmin waa dhigi kartaa, waana ku soo celinayaa mar kale. Haddaba haddii aadan fahmin isxakirin oo comment soo qor oo weli wax ma fahmin ayaad soo dhigi kartaa. Hadda waxaan doonayaa in muuqaalkan si official markaasi TikTok-gayga u dhigo, si hadhow aan kuu tusiyo qaybta CapCut-ka oo kor la soo saarayo inay markaasi soo fuulayso. Waayahay waxaan adeegsanayaa hashtag-yadan. Okay, thumbnail ayaan u sameynayaa. Thumbnail markaa u sameeyo kadib waxaan leeyahay post ama next. Okay, post ama next ayaan dhahayaa. Marka wuu wareeganayaa inta uu ugu buuxsamayo muuqaalkan ayaan iska sii daawanaynaa. Gabadhan waa maadaama ay ku adan tahay star TikTok ayaan iska dhigaysaa. Profilkeyga ayaan tagayaa. Profilkeyga muuqaalka ayaan ku dhufanayaa. Muuqaalka marka aan ku dhufto si toos ah calankii koonfur galbeed oo haleecin waayo anigu waan ciiloonayaa. Calankii koonfur galbeed oo caadka sare babo waayo anigu waan caaboonahay. Intaad cirkuba ka agdhowdahay cid kastaaba waa calankeede, anigu astaanteydu waa cagaar iyo gaduud culumadii aaraare. Sidaas ayaa loo sameeyaa. Haddii aad wax naga faa'iiday please subscribe like sar saaxiibadaada si aan saaxiibo wanaagsan. Calankii koonfur galbeed oo haleecin waayo anigu waan ciiloonayaa. Calankii koonfur galbeed oo caadka sare babo waayo anigu waan